impossible عقل بالعادة ما كان كرو قف العقل وهيستي جبتي إنه سو دب ترى قدار ما هاني ما جبن كرتو سيكون على فوركس بان كتير العقل ما أنا صرفتي لعتنا أنا له العقل لا يلنا يواعي أنا نسكله هدينا جبتي بل إيش شيء سيكون دعكرته ما دعكريس لعتنا ما جبن كرتو لكن قيمة هذا hoos buu dhici karaa waxa ku dhici kara qiimo hoos u dhac marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أخيارتا قلب وناكسن هبين وناكسن وفول بسيطة يقطهاي وين والسلام يا دمانتين وكل ما سنتهي إن جواب صوب بحسي ما شاء الله وقرال هذا كدي إن شاء الله وحفي عنا هيد سانسليها إن هذا أي باشو نقطة واي قرال كدتكوا كداليان أخرس كتير بدن مركا هذا البان وجوابي أو حيالها سوا قرتي ولالك يورتا halkan anu waa lagu yaqaanaayo boqolaal mar baan focus ka hadlay oo sheegay qaabka uu ku xun yahay iyo waxyaalaha diinahan uga soo horjeedo waxaan waa sharaxay boqolaal mar baan sharaxay laga yaabaa adigu inaad groupka ku jiro anagu cusubtaa laga yaabaa ama aad ku jirtay laakiin aadan hore u arag waxyaalo badan baad sheegtay oo sharaxaad ka bixisay runtii ma soo hadleen waan iska aamusi lahaa laakiin waxay u muuqataa sharaxaadda soo bixisay inay majara habaabin ku jirto oo dad badan oo Soomaaliyeed qolkan ku jira waxa qaabka u sharaxday ay xaqiiq u qaadan doonaan oo markaas ay moodayaan wax sax inay tahay in saxna ma aha wax waqti inaad fahansaneen forex horta marka ugu horeysa waxaan ku sheegay walaal qof muslim oo Soomaali ah oo duulaan ku ay ma jiro laakiin waxaan jecelahay inaan wax anigu cilmigayga markuu wax i gaarsiiyo aan ogaado shayga xaqiiqdiisa dadka u sheego khaasatan haddii wixii dambi yihiin oo dambi ka dhalanayo marka intaasun kaliya way laakiin waxa adiga hadda duulaan aan ku ahay ama forecast hadda kor uu xumeeyay ama ku khasaaray ama saad hadal u qorqoraysid horta ma aha saas hadhiina degdegin aan waligay forecast ma galin forecast waan akhriyay diimogana waa galay diiman sameeyay diimaha bes aan sameeyay laakiin sirriya waligo ma galin laakiinse waan akhriyay wax akhriyaan ahay academic ah marka muddo far badan baan akhrinay runtii waqti aad iyo aad u badan bay iga qaadatay forecast inaan fahmo saan u akhrinay وآخرين سنة هذا فرق بدن كذب وافهم سيف عم وافهمي لكن مركز ورسان أنا قاعد فوركس وحياة بعض ملاينيات أدو شان سنة كور مركزنا آخرين يربا كجارسية كذب نوافهمين وحقلتين وكتوك سري كذب آخرين تسيب بالعاب كو شيء سوى فوركس كدت كدعي أو كوروناها يحل كوروناها يوحير كهر كوروناها يدت كدعي تري أنا ما جالين ولا دت كانوا أقعد دقي تري وحنقلنا يا دت أن saaxiibana hay kuwan qaraabana hay oo aan uga digay oo galay oo lacag badan laga dhacay marka imaysa dhageysan laakiin way ku khasaareen waa laga dhacay lacag badan baa laga dhacay waan ogaa kuwaas in scam yihiin kuwaas inaysan forex ahayn waan ogahay kuwaas waxay ahayn scammers caadi oo forex ku qaraabanay ahaayeen marka forex kuwaas ma ahayn scammers bay ahaayeen waan uga digi jiray dadka dad badan bayna ku khasaareen Soomaaliya aad baan uga xumaa ala kulli xaal waan ku soo koobay walaal horta su'aal baan ku weydiiyay aniga waxaan ku kala sharaxay forex laba qaybood inuu yahay mid spot ah iyo mid CFD ah ama derivatives ah waxay u agtay inaad aqoon CFD iyo derivatives waxa la yiraahdo adiga waxaan ku weydiiyay brokerka ku jirtay ii soo qor magaciisa maada soo qorin ma garanaysa sababta u qarinaysa brokerku waa nin weyn caana adduunka dhan wada yaqaanaan aduu waxa u qarsanaysa ma soo qorti waxaan ka tusin lahaa in waxa adiga forex adiga ku jirto broker ugu jirtay inuu yahay khamaar baan ka tusin lahaa iyo leverage riba ribada leverage waad ka dooday horta dib ugu dhigtaas khamaarka marka hore aslinaya kadib ma ka soo laaban doona insha Allah forex walaal waa laba qaybood soo hore ku sharaxay mid spot baa la yiraahdaa waa forex ka runta ah lacagaha trillion-ka sheegaysa soo qoraysay meelaha la isku dhaafsada isaga waaye bunuugta isticmaala iyo dawladaha iyo shirkadaha waaweyn iyo kamaniyaasha hedge funds ka la yiraahdo iyo xataa brokerada qaarkood kuwa lacagta haysta iyo dad kale liquidity providers la yiraahdo kuwaas isticmaala jeebweynta iyo kamaniyaasha waaweyn ee bunuugta sicirka arkaysid ee forex-ka ee beariska isku ah meesha laga soo qaadanayo dadka jaangooya oo kuwaas waa sicirkii bankiyada isku dhaafsanayeen lacagaha qalaadi weyn sicirka adiga arkaysid oo broker ku soo bandhigayo sicirku halkaas ka socda taas ogow taas waxa la marka forex spot ama over the counter waa la oo isaguna spot inkastoo over the counter fees qaar derivatives leeyahay spot forex baa la yiraahdaa ama exchange forex ama interbank forex baa la yiraahdaa kuwaas idinka ma gashaan hadda Soomaalitiin inta fahma inta Allah helin fahansiyo markii forex la weydiiyo waxa sharaxaysan maanta kii spot ka ahaa inta soo tiriilin bal isku dhaafsada suuq weyn weeye war suuqaas adiga ma aha ka ku jirtid inta fahan Soomaaliyo suuq adiga ku jirtid ka ma aha adiguna ma gali kartid qof individual shakhsiyan loo ma gali karo forex kaas inta fahan forex kidka ku jirtaan waa kan brokerku inii keenay ma aha kii bankiyada kii dawladahana ma aha kii spot-ka loogu talgalay in lacagaha caadiga loo kala qaato loo kala wareegsadana ma aha kaas bankiyada sameeyaan ku sheegay iyo dawladaha iyo kamiyasha waaweyn kaadi ku jirtaan waxa lagu magacaabaa derivatives inta Allah ina fahansiyo dibku wuxuu ka taagan yahay
waxay u egtahay inayna fahansaneen derivatives horaan u sharaxay 100 mar baan sharaxay waxa weeyaan waa ganacsi laakiin ganacsiga isaga ahi barayskiisa unbaa ku khamaaraysa jihadu aadayo ee ganacsi kale oo jira baa barayskiisa la soo qaatay kiibaa lagu leeyahay ku ciyaar ku khamaar oo long short u gal derivatives baa lahaa shayga asalkaana underlying asset baa lahaa underlying asset daamaqash waxaa laga wadaa lacagahan qalaad ee bankiyadu ku kala sarifanayaan ee forexiska ah ee spotka ah kuwaasaa underlying la yidhaahdaa adiga kuwa aad ku jirto broker kugu keenay waxaa lahaa derivatives underlying assetkaas barayskoodii oo lagu keenay ayaad keliya ku khamaaraysaa haddaba derivatives haddaad aqoona kuu sharaxo derivativeska micnihiisu waxaa weeye inaadan waxba la yeelan ee uu yahay khamaar bes only speculation baa la dhahaa saadaalin bes keliya barayskaas unbaa dhinac u raacin ama kor baa u raacin ama hoos baa u raacin CFD baa la yidhaha kuwa brokerska hayaan derivativesku waa magacyo badan yahay oo waa dallad weyn waxaa soo hoosgala CFD-ga waxaa soo hoosgala futureska waxaa soo hoosgala optionska ama qasheen oo tirada badan wax alaal wixii optionisa waxaa soo hoosgala swapka arkaysid waxaa soo hoosgala waxyaalo fara badan contractyaal fara badan oo kala duwan oo magacyo leh perpetual contracts hadaa maqashid oo soo hoosgala waxaasoo dhan waxaa lagu magacaabaa derivatives intaa kala fahma reer forex allah ina fahansiiye idinka brokerku waxa uu inii keenay waa nooc ka mid ah derivatives waxaa lagu magacaabaa CFD walaalka waxaa moodaa inuu qiray hadda maadaama uu CFD sharaxay waxaa moodaa inuu aaminay inuu CFD ka ganacsado su'aal baan ku weydiinayaa iyo dhalinyarada forex ka shaqeysa labadaba dhammaantiin waxaan weydiinayaa idinku ma spot forex baa ka shaqeysataan oo bankiyada ku jirtaan kaas ma geli kartaa waan ii sheegay laakiin hadda tiraa ku jirnaa waa ceeboobaysan sababtoo kuma jirtaan mase waxaa ku jirtaan kan broker keenay oo CFD-ga ah derivativeskana ah kan dambaa ku jirtaan laakiin still su'aasha wayna weydiinayaa ka jawaaba kee ku jirtaan haddaad tiraa waxaan ku jiraa kan broker keena oo CFD-ga ah ogow derivatives waa ku jirtaa CFD iyo derivatives waa hal shay oo isku mid ah intaa allah ina fahansiiye CFD-gu wuxuu ka mid yahay derivativeska CFD-gu wax kale ma aha saa u sharaxday khalad waay CFD waxaa weeye waa contract for difference waxaa laga wadaa waxay heshiis ku jirteen adiga brokerka waxay heshiis ku wada tihiin lacagahaas la isku sarifay banuugta isku sarifayaan isbeddelkooda barayskooda inaad idinku wax ku kala qaataan oo isagu adigu markaa buy u gashid isagu wuxuu u galayaa sell haddaad sell u gashidna isagu wuxuu u galayaa buy horta ma ogtiin inaad broker la ganacsataan ma ogtiin horta mase waxaa u qabtaa inaad dad caadi la ganacsanaysaan ganacsi ma jireen macnaha wax ka wada la khamaaraysaan waa brokerka laftigiisa waaye cidda adiga aad buy sales la galaysaan isaga waaye contractiga isagaa kula saxiixday contractgaasna wuxuu ku magacaabay CFD keliyana waa barayska bes waaye keliya waa barayska ma aha lacagta bal akhri waxaa soo qortay CFD marka sharaxaysa bal akhri English ahaan miyaa ku aragtay currencies exchange miyaa ku aragtay maaha waa price exchange waaye waa only price ka waaye maaha lacag maaha CFD haddaa maqashid looguma talagelin lacag in la kala qaato waxaa loogu talagalay barayska in lagu khamaaro speculation lagu sameeyo sidaas waxaa qoraya brokerada aad ku jirtaan oo dhan baa qoraya brokeryaasha aad ku jirtaan oo dhan saasay u qorayaan idinku waxba ma akhrisaan waa oga soo akhriya please sidaas hadda aan ii sheegay waxaa qoraya brokerada aad ku jirtaan oo dhan baa qoraya waxaa qoraya qof kasta oo forex yaqaana brokerada hayaan wuu qoraya haddaad online ka raadsid saasaa qormaysa haddaad practical u aragtidna waa sidaas marka waxba is wareerinina waxaa ku jirtaan CFD-guna waa nooc derivatives ka mid a derivatives oo dhan dhammaantoodna waa khabaar waxaan khamaar ahayn kuma jiraan saas ogaada dhowr tusaale ayaan idin tusayaa oo haddaan hoos u dego sheegaya ama ku tusaya haddii qofku uu fakero maskaxda ka shaqaysiiyo inaad khamaaraysid number 1 horta shuruudaha sarifka barta dad diintan islaamka shuruudaha sarifka laba shardi u dejisa number 1 waa inay waxa isku sarifaysid meesha lagu kala qaata isla goobta hadday online tahay waa isla markiiba inaad kala qaataan oo loonkaaga ay ku soo wareegto akoonkaaga waxaa gadatay wixii adiga iska gadayna waa inay kaa baxaan tan labaad hadday kala duwan yihiin lacagaha waa kala badin kartaa laakiin hadday isku mid yihiin oo isku hal lacag isku sarifaysid ma kala badin kartaa labadaas shardi baa loo shardiyaa shardigeeda keena haysta waxa waaye wax aad kala qaadateen ma jiro dollar baa la timid akoonkaaga dollar waaye waxaad tiri waxaan gadanayaa lacagta Britishka adaan ku weydiinaya su'aal baan ku weydiinaya su'aasha ina weydiinaya waxay tahay reer forex lacagahan tirada badan aad ku aragteen barayskooda meesha ku qoran yahay iyo beeriskooda marka akoonka adiga furatay broker ka furatid see suurtagal kuugu noqotay inaad dhammaantood ka aarabtid aad ku boodi kartid oo haddana labadaba kii aarabtid aad laba dhinac u gali kartid long iyo short kala gali kartid see ku dhacday waxbaan sarifaya baa tiri moogta fiiri aan isfahanno
maskaxda ka shaqaysa maskaxda daji tartiib koobshaha soo qaado si loojiga aan wada hadalno tii hore waa kugu soo sharaxay laakiin hadda waxaan kuu sharaxayaa si loojiga waxaan inay aad ku jirto khamaar baan ku rabaa inaan ku tuso adiga marka dollar la timid $1,000 baa la timid kaasaa waxa lagu daray waxa lagu siiyey sayska ugu weynaa baa lagu siiyey ka soo qaad 100,000 lacagtaada waxa la dhahaa deposit waa la soo collateral baa lagu magacaabaa ama deposit ama margin way dhahaa waa lacagtaas waa curaar taa xataa inay nafaasaneen bay u baahanta lacagta deposit habay meesha u taallaa waxaad ku ganacsanaysaa leverage lacagaha lagu deemiyey hay'adda mayso dood baa ka keenta taas leverage dib aan u dhigana waa sheeko dheer inay nafaasanayay u baahanta hadda waxaan ka hadlayaa marka adiga dollar keensatay $1,000 keensatay oo $100,000 lagu yiri waa ku gali kartaa suuqan goorma ayaad gadatay lacagahan tirada badan meesha yaala 30 ka badan maqaalkood ka badan yihiin waxaan meesha yaalo oo dhan oo barurka ku keenay ma adaa iskale su'aasheed waxa ma adaa iskale oo gatay hore u gatay oo hantidaada weeye masama hadaa tiraahday ma aha hantidaada ma waa sida saxda ah see suurtagal kuugu tahay inaad adoo dollar haystay aan laba lacagood oo kale oo aan dollar ahayn isku bedeshid see ku dhacday ma dhici karto de logic ma marka lacag adiga aad isku gadaysid waa inaad haysataa soo saas ma ahayn waa inaad mulkiyadaada ku jirtay maxaa la sarifaysidaa horta waxaad sarifi kartaa wax aad mulkiyadaada haysid oo adigu aad leedahay war soo saas ma Soomaaliya marka adiga aad suuqa tagaysid oo wax sarifaysid waxa adiga aad sarifaysid oo iska sii gadaysid ilaa markasta aad wax sarifaysid waxba iska sii gadaysaa adiga waa wax adiga haysiba iibinaysa mid kale ku iibsanaysa soo saas ma haddaba waxa soo lacaga meesha yaala waa adiga ka rida gali kartid see ku dhacday mid ka rida inaad gali kartid goormaad gadatay goormaad haysatay ma haysatid mana aadan gadan muhiimadu kaliya barokra wuxuu kugu yiri waxaanu beeras waan ku keenay ku khamar buu kugu yiri inta faham sababta maada haysan mana aadan lahayn lacagtaas adiga haddaad leedahay itus haddaad tira anaa gatay waxoo dhan oo GBD intaasaan ka haystaa yeenka intaas waxbaan ka haystaa dollar intaasaan ka haystaa muxuu ahaa tii Australia intaasaan ka haystaa kat intaasaan ka haystaa kat waxaasoo intaasaan ka haystaa tii Canada keen itus bal proof garee xagee ku haysataa goorma gaad halkee kugu jira ma jirto maadan gadan hore maadan gadan saadanadeed brokerku wuxuu ku leeyahay beerarkaas oo dhan ku ciyaar buu ku leeyahay hadda brother waa isfahanne lacagaada haysan miyaa ku ciyaari kartaa halka fahan ina khamar ku jirto taa waa number 1 number 2 waxaad fahantaa adiga lacagaada haysan oo dollarkaaga ahayn ila dollar meesha la timid oo yen ah ama tan ingiriiska ah baad seel ku qabane seel ma taqaan macnaheeda anaa kiribta hadaan joogno seel waxa la dhahaa marka aad kiribta haysatid iska sii gadaysid ama ku bedelanaysid USDT ama dollar ku bedelanaysid ama kiribta kale ku gadanaysid baa seel yiraahdaa idinka meeshina seelkiino haddaan ka dhigno sa adigu u rabtid oo lacagna kala gadanaya aan ka dhigno maba he seel waxa la yiraahdaa inaad lacag haysatid iska gadaysid goorma yen haysatay aad iska gadaysid goorma seel lacag iska gadaysid baad waxaad dhahaysaa baa weli furan oo marka seel tiraadid weli waxa arkaysaa trading furan mubaantayba marka seel wax tiraadaan ama short u gashaan short ba tiraadaan weli waxaad arkaysaa trading waxa ku furmaya trading ma ku furmaya waxa ma iska gadinay adaa trading markaas waa trading ku furmayaaba inta ma fahmi weyseen markaas waxa ku furmay tradingkii ila seel waxa ku dhaqan wax laga lagu kala taga Soomaaliya yes ma ahayn hadda waxa weeye seel battery seel ma ba aad dhihina markaas tradingkii furmayba position ba qaadatay soo beentay yes position ba qaadatay trading ba ku furmay markaas seelkii trading kugu furmay oo muxuu kugu furmay wuxuu kugu furmay seel ba ku qamaaraysa macnaheedu waxay ka dhigantay adoo yiri lacagtan seel baan ku galay macnaheedu waa maxay short baan u galay waxa laga wadaa hadduu hoos aado waan faa'iidin hadduu hoos iiso aado waan saan rabay waan faa'iidin laakiin hadduu kor aado lacagtan yanka ay kor aado qiimaheedu kor u kaco waan khasaarin saasa laga wadaa short ma soo beentay marka short u galaysaan ama seel u galaysaan imisa shay baa ku jira meesha hadda wax fahmaysaan lacagada lahayn baa gadaysa baa seel dhahaysaa haddana seel baa ka faa'iidaysaa oo lacag khasaaraysa oo haddii ay hoos aado khasaaro u socota waa ka faa'iidin baa dhihin see uga faa'iiday sheeg logic miya lacag seel ku socota ee adigu aad tiri lacagtan hoos bay aadaysaa hoos u saadaalisin hoos aado baa dalaq tiri waxa iska gadoo seel galaysan ma jirin oo ka tagay position baa ku furmay markaas trading ku bilowday haba bilowday tradingkii tradingku khamaar buu ahaa kadib tradingkii hoos bay lacagta u sii socotay yankii ayadoo hoos u socota faa'iido ku socota adigana logic miya kulatin logic tahay bal ii sharax see logic u tahay lacag aad inta gashay hoos u socota oo seelkii aad ka faa'iidaysa ayadoo hoos lacag qiimeedu hoos u socda baan ka faa'iiday bal ii sharax Soomaaliya ma sharixi kartaan laakiin waxa meesha ku jira waxa waa ina fahmin khamaar waxa ku khamaartay lacagaha khamaarka oo ogta laba dhinac oo loo gali karaa waxa dhigi kartaa ama kor baan u galay oo kor buu aadi doonaa ama hoos baan u galay hoos buu aadi doonaa hadda hoos u gashid oo seel u gashid ama long short u gashid oo ay hoos aado adaa faa'iidaysid oo lacagtii yanka waa khasaaraysa khasaara ku socda adna waa faa'iidi hadda kor aadana yanka kor ka aado
وفائدة أي لعتي ودن كاسيان كجبان كأي فائدة دش أو معناها العق قيمته في عناده أي نقطة كر آدنا هذا أديك سيل أقرب خسارة سا هاوكم سيكون العق حلوية قانا عادي markii aniga ay ii kacdo inaan ka faa'iido markay ila degto hoos aadan inaan khasaaro saas ahaan jirto sama halkan bilcagsi waa ka duwanta war inta ma aragteen Soomaaliya sameyn arag boontigaasna qabsada halka waan ku dheeray sababta marba inaan ku soo laalaabto waxaan rabaa hal mar inaan hadalkan iska dhamay meel iska saaro boontiga saddexaad aan ku sheegay waxa waaye oo ku tusinay inaan khamaar ku jirto marka adiga aad suuqa ku jirtid oo aad lacag sarifanaysid lacagta adiga soo sarifatay waa inaad tiradeeda la yaqaanaa soo beentay مثلا $100,000 buu ku yiri brokerki ku gal ku yiri ama iska badaab leverage maal qaadan kunkaagii baa ku gashay $1,000 adigu waa leedahay kunkii markaa ku gashay soo sarif baa tiri moogta adaa yiri wixii waa sarif yen baan rabaa marka dollar yen isku dhagan markii yenka aan marka dollarkaygii waa inaan dhahaa sell soo saas ma sarif soo saas sarif saas la waa inaan dollarkayga iska iibiyaa buy marka waa inaan dhahaa yenkii sax soo ma marka yenka hadaan buy dhaho macnaheedu waxa waaye dollarkii baa anigu iska sell gareeyay yenkiina waan soo qaatay waa in yenkii marka oo tirsan oo inta xabo oo ku tirsan waa in haysataa waligeed ma aragteen forex inta ku jirteen lacag tirsan ilaa anigu hadaan suuq tago maanta aan suuq lacag geysto $100 geysto suuq bakaaraha aan shil Soomaali aan raba inaan qaato 2,500,000 isiinay tirsan wax tirsan waay waa unit tirsan waa inay tirsanta lacag hagee ku arteen lacag aan tirsaneen lagu kala ganacsanay idinku waligeed adduunka ma dhici kartaa markastoo aad lacag galaysid haddaad tiri waa lacag waxaan la sarifayo markastoo aad lacag galaysid waa inay tirsan tahay tan kaa baxaysaay waa inay tirsan tahay tan yaankaahina ama ta kale oo kusoo bedelansidna waa inay tirsan tahay haddaysan wax la tirsanaya aysan jirin hadda meesha lacag maada gadan ogow waxa maada gadan khamaar baa ku jirta soo beentay intaas iyo in ka badan oo aan rabo haddaan sii wado waa wada kara hadalka laakiin intaas dhowrkaa shay baan kugu soo koobayaa waad ku fahmi karaysaan waxa ku jirtaan inuu khamaar yahay hal mid aan ku sii daro muhiim oo number 4 aan ka dhigo waxa weeye akoon gubanaya qofka bini aadanka markuu lacag sarifanayo oo lacag suuqa caadiga ka sarifanayo suuq banaanka yaalo physicalka bakaara suuqa bakaaraha suuqyada kala adduunka oo lacagaha caadiga la kala sarifanayo over the counterka lacagtaada may khasaartaa hadda lacag soo bedelatay way khasaar kartaa qiimadeedu hoos ugu dhici karaa laakiin lacagtaada may guban kartaa impossible aqli bini aadanku ma keeni karo qof lacag uu haystay gubatay inuu soo dab taraq ku daara ma ahane ma guban karto see ku dhacday forex baan ku jiraa lacag baan anigu sariftay lacagtana anaa laho lacag la yeelanayo waaye anaan iska leh haddana waa iga gubatay bal ii sheega see ku dhici karto ma dhici karayso lacagtaada ma guban karto laakiin qiimaheeda hoos buu u dhici karaa waxaa ku dhici kara qiimo hoos u dhac dibsa ma leh haddii qiimaheeda hoos u dhaco dee waa iska haysanaysaa laga yaabo inuu sanadka dambe qiimaheeda soo kabsado ama bil kadib ama hadhowta haddana iska sii gadaysaa waa sida normalka lacagaha caadiga lagu yaqaano laakiin lacag baan gatay haddana qiimaheedii baa dhinac u galay maahan dhinac kale markay aaday ayay iga gubatay waxaaba kaaga sii daranba seel baa u gashay markaasi dhinac baayiga aaday bimacnaa lacagtii way qiimo yeelatay yeenkii adiga aad gashay oo seelka u gashay baa qiimo yeeshay lacagtii waddanka oo jabaanka qiimaheedu kor buu u kacay barays fiican bay noqotay markii loo barbar dhigo dollarka qiimay soo yeelatay adigana waxaa leedahay khasaaraan ku jira weliba waxaa leedahay akoonkayga waa gubtay war waxaas suurtagal war see suurtagal ku tahay si akoonkaaga u gubtay lacagta yeenka kor bay u kacday inta fahan lacagta yeenka adduunka kor bay u kacday baraskeedu kor buu u kacay qiimo yeelatay adigana waa gashay see adiga u khasaare see lacagtaada u gubata akoonka u gubtay akoonkaaga maxaa gubaya baash waaba faa'iidabe warnimo yar isku ciyaarin wax fahma Soomaaliyeey waxa ku jirta khamaar waay CFD iyo derivatives baa la yiraahdaa CFD waa nooc derivatives kamid ah brokerada dhan baa inay cadeynaya waa inay sheegayaan hadda hadalkayga been moodaysaan waxa ka akhrisaan brokeradina meesha ku qoran tahay risk warning meesha ku qoran tahay terms and conditions meesha ku qoran tahay contracts akhriya PDF way qaarkood waa soo download gareysan kartaa war wax fahma waxa ku jirtaan waa khamaar ma aha forex-ka runta aha mar walba wax la hadlo waxa soo dalishataan charts baa lagu saadaliyaa waan saadaliyay saadaasheedu khamaar ma aha idinku kiribto waa saadalisaan wax laga hadlay waxas ma aha wax fahma wax laga hadlay charts ma aha wax laga hadlay saadaalinta fiican ee charts lagu saadaalin ma aha wax laga hadlay waa saadaal khamaar weey ila markii khamaar waa saadaaliyay Soomaa waxa dhaysa khamaarkan kor buu aadan hoos buu aadan ka soo qad ciyaaraha kale marka saadaalinaysid ciyaaraha marka saadaalinaysid waa lagu khamaarayo soo lamana koox xilbaaya badanaysa saadaal taasan ka hadlay aniga saadaasha anaga aan sheegina taasoo kale waa idinka sameeynaysan ma aha tii caadiga ahaydo charts la dhigayay oo charts ku sheegay dhinaca jihada u aadayo kama taasna fahma si kastaba haatee meesha laga hadli maayo charts meesha laga hadli maayo faa'iido khasaaro qaar baa ku dhahay waa ku faa'iidnaa si khamaar ku tahay wax fahma waa in sheegay sarif marka galaysa hadaa muslim tahay laba shuruud baa laga rabaa
haddaa 2 shuruud keeni weysid riba ku jirta labada shardi nabiga sallallahu alayhi wasallam baa noo sheegay ahadiis baa ku soo aroortay culimada muslimiinta oo dhan waa isla waafaqsan yihiin hal qof oo diidan kuma jiro saas fahma culimada aragteen dadka culimada ee ka hadlay forex ka si Soomaalida Sheekh Xasan kale Sheekh Abdi Xirsi wadaad kale yara Suuli baa hadda inta arkay ka hadlay oo forex xalaal weeyir saddexdooda ma fahansana qaarkood waan doonnaa aniga waan wada hadalnay waan doonnay markii dambe ay la fahmeen been wallahi in sheeg maay markii dambe waxa ka hadlay way la fahmeen waxay dhahan waligan wax saar dhinacaas naga tusamaan arag marka miir isku yaala isdajiya ma ay fahansana waxay ka hadlayaan dadkaas xasan wuxuu malaynayaa forex-ka caadiga ahaa ee sportka u malaynaya markuu fatwoonayo ما فهم سنة كان بروكرو هايو إنه يهاي دريفتيفز واحد اللي المشتقات ما فهميه إذا كان ما ينفهمين واحد كل تاني دريفتيفز تاعي هذا الكل دير هذا أنت الله نكون فعو هل كاسة أنا أوجد بي دودان هل كاسة يجي حرنت عنيقة وبالله التوفيق السلام عليكم